qarxis uus guray waxaa la yidhi reerkaa ka dhalatay waxay joogaan meel la yidhaahdo shiraar iyo muuqaal ka yar baan rabaa inaan idinla sheergareeyo oo cidna aanan u sheegin oo aan caawa rabo inaan maaragtay faaha ka qaado waxaan imid garowwe anoo jira 11 u dhaxeeya hooyaday baa ila socotay waxay tiri aabay wuxuu dhintay anoo 9 sano jira marka waxay tiri hooyo nakeen aan ku soo tusay dadkaad ka dhalatay ilaa nin South ku dhashay ahay luuq baydhawaan soo maray xamar baan soo maray markuu aabba dhintay oo ka yimid waxay dhigi jirtay aabbaha wuxuu ku dhashay eel kasaan dhigi jiray hooyo eel waa halkan marka waxay tiri bal aan ku soo tusay dadkiidii dadka ka dhalatay nakeen garowaan soo maray waxaan joogay hal habeen waxaan u gudbay qardhaan waxaan joogay 20 maalmood waa ka tagay waxaan aaday qarxis uus guray waxaa la yidhi reerkaa ka dhalatay waxay joogaan meel la yidhaahdo shiraar iyo muuqaal waxaa jooga nin adeerka ah oo riyoolo ah oo leh 10 ilaa 15 tiro oo ida ah asagana may imaan karo qarxis waa inaad sugtaa ilaa uu ka yimaado in u dhaxaysa qarxis iyo uus guray siduu ku wado waa sugnay qarxis inta u dhaxaysa uus guray aniga hooyaday waa lugaynay hooyaday jambal qabta waxaan soconay 3 maalmood iyo 2 habeen si aan u gaarnay shiraar iyo muuqaal hooyaday waxaan xasuustaa aniga waxaan qabay kaba cusub oo Nike ah oo aan ka soo gatay xamar oo aan ilaalinayo dhaldhalaalayo waagaas maamada Allah u naxariistay waxay qabtay jambal kuma aysan soo talagelin inay lugayn doonto 2 maalmood iyo 3 habeen marka waxaan xasuustaa maamada Allah u naxariistay inay lugaha biyo ka galeen say u socotay oo lugaheeda ay jajahmeen marka inta ay xanuunaysay oo ay dhiigga uu ka socday marna nooma sheegin markaan gaarnay shiraar iyo muuqaal iyo odaga adeerka wuxuu ugu yiri adeer reer kala jira oo noo jira wax yar marka maanta oo dhan wuxuu ugu soo waday 3 maalmood wax yar markaan ira adeer waa halkee meesha wax yar habeenkii baan seexanay subaxan soo kacnay wax yar marka waxaan ira adeer run ku sheegaa maamada waa u jeedaa lugeeyay inay biyo galaan dhiig ka socdo aniguna kabeeyay cadaa waa baabeen marka halkan ma dhaafeen bal horta aan nasano 2 maalmood 3 maalmood marka kadib aan shaakeysano way iga yeelay gurigan joognay waxaan noloshaas waxaan joogay bil ku dhawaad baadiye waxa ay galay injir timii waa ugu bateen waxaan xasuustaa waxaan qaadan jiray break markaan raaco idaha subaxi geedka aan fariisto injirta waxaan qaadan jiray time aan ku dilo injirta maradayda macawista ah madaxayga noloshaas runtii waa i taabatay hal su'aal baan weydiiyay adeerkay waxaan iri adeer maanta maamada waa kan ma kici karto dhulku waxay fadhisaa yani sariir bay saaran tahay ma socon karto xagee isbitaal noo ah xagee tagtaan xagee dhakhtar yani diina adeer wuxuu yiri waa noolnahay alxamdulilah hadday wax dhacaan oo jirar timaado haddaan dhimanana alxamdulilah basically jawaab kale oo ka dambaysa oo aad sugi karta ma laha micnaheedu waxay tahay markaan noolnahay waa noolnahay intaan noolnahay hadday noo timaado tii allana anagoo jiran alxamdulilah taas baa waxay iiga soo tagtay waxaan waligay hilmaami karin high schoolka markaan ku soo noqday sida gabadha hadda noo sheegtay Sundus oo aan jaamacaddii ka baxay Mareykanka ee xisaabta
oon master ka qaatay oon bilaabay shaqo fiican oo runtii ahayd shaqadii markii igu horeysay Mareykan aan ka shaqeeyay 2 sano markaan tagay 2 sano wax baranayay aan ka shaqeeyay oon runtii ku degay yaa waxa igu soo dhacay anoo habeen iska jiif warbowe hadda dadkii u noqoto maxaa ula taagi doontaa maalin walba iyo habeen walba igu soo noqonaysa hadda tagto shiraar iyo muuqaal adoo 80 sano jira garow eyl gaalkacyo qardho laascaanood meel kasta oo Soomaaliya kamid ah hadda tagto adoo 80 sano jira maanta maxaa ula tagaysaa dadkii accounting baa baratay xisaabaad baa baratay computer baa baratay dadkan ogaa waxba uma qaban karo markaan fiiriyay marka waxaan isiri bal wax aad kaga tagi karto dadkaaga marka ku noqoto ninkii shiraar iyo muuqaal joogay oo aad dhihi karto anoo 80 sano jiro oo u sheeda wato hatta indhaha hadaan lahayn aan wax u qaban karo because dhakhtar baa ahay meel kasto adduunka tago maanta wax waa ka qaban karaa luqad uma baahna inaan ku hadlo luqad kasta oo adduunka ka jirta dhakhtarka waa lagu turjumi karaa waana ku hadli kartaa taasa igu qasabtay in aan dib ugu noqdo iskool sababtu waxay ahayd waa markii igu horeysay maadaama aan qax ku jirnay qaxooti ku jirnay aanan time helin aan ku fikirno oo niraahna bal maxaa qaban kartaa ilaa intii kale oo dhan waxaan ku jirnay orod taasa igu soo horeysay markii igu horeysay fadhiisto aan iraahdo okay maanta maxaa ku marmarsiyoonaysaa ilaa qaxooti miihide Mareykan baa joogtay taasa keentay inaan sameeyo wax runtii aqli gal aan ahayn oo dadkoo dhanba macal hooyada ay ku jirto ay runtii aad uga soo horjeesteen ay yiraahdeen ma aragtay waxa sameynayso waa qaldanta inta noloshaada ka hartaa waxa ku dhamaysanaysaa iskool marka laba ballan baan samaystay oo aniga aan samaystay maxay ahayd number 1 in aan dhameeyo jaamacadda la adligeed wadankayga walaalahay iyo dadkayga dartiis haddii ilaahay caafimaad isiiyo nolol isiiyo in aan noqon doono ama aan samayn doono wax la taaban karo oo millions of people gaara taasa keentay in alxamdulillah niyadaas ilaahay igu gargaaray in maalin kasta oo aan dadaaweeyo subax kastana waa niyeystaa cibaadaan u niyeystaa dhakhtarnimadeeda iyo camalkayga dhakhtarnimada ah taas waxay dhalisay waxa aan maanta rabo inaan idinla sheer gareeyo ballantii aan qaaday waa ka baxay sababtoo ah maanta xor baan ahay inside waa bilownay waa dhagax dhignay adinkana waa idinku soo present gareeyay adinka loo baahan yahay in aad daba qabataan nala dhamaysaan si nolosha wadanka ka jirta khaasatan degmadan Garowe ay u noqoto center caafimaad oo adduunka oo dhan la isaga yimaado waxaan idinku ballan qaadayaa hadduu Ilaahay yiraahdo Ilaahay markuu nagu no suura galiyo in mashruucan uu hirgalo sida sheekhu uu noogu soo duceeyay iyo culimada dhanba in dadka Mareykan jooga ay soo noqon doonaan wadan ku soo noqon doonaan wax walbana iska bedeli doonaan magaalada walaalayaal taas sheekadaas yartaan rabay inaan idin la sheer gareeyo